السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي ولا لا تشالنكينا سمجرات كحران waxay soo gaadhay fariin ka timi wiil dhalinyara oo challenge-keena ku xiran sida tan bayna ahayd fariintiisu wuxuu yiri waxaan rabaa in aad barnaamij nooga soo diyaarisid dhalinyarada hadda soo kacaysa ee anigu aan kamid ahay ee u dhaxaysa 15 ilaa 18 jirka ah haddaba muuqaalkiinana wuxuu daaran yahay 10 qodob oo la gudboon dhalinyarada hadda soo kacaysa rag iyo dumarba ee muuqaalkiina maanta ugu dagalno qodobkeena koowaad ka faa'iideysta dhalinyaranimadiina waxa la yiri ummad waliba siday dhalinyaradeedu u eertahay ayuu mustaqbalkoodu ku xidhan yahay dhalinyaranimadu waa waqtiga uu qofku soo korayo jidh ahaan caqli ahaan iyo maskax ahaanba dhalinyaranimadu waa waqtiga uu qofka dhalinyarada uu wax walba awoodo inuu qabsado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ka faa'iideysta dhalinyaranimadiina inteenan gaboobin qofku markuu gaboobo caqligiisa bata laakiin jirkiisa ayaa howlgab noqdo waxba qabsan kari maayo marka dhalinyaranimadaada ka faa'iideyso maanta haddii kale haddaad maanta ka faa'iideysan weydo beritoole markaad gaboodid ayaad calaacalaysaa layta shabaab yaa cuyuni alamaruyan dhalinyaranimadiisa celiyad odhanaysa ee maanta ka faa'iideyso dhalinyaranimadaada horaana loo yidhi waxaa jirta maalin aad talo aad haysid laakiin waqti aad wax ku qabsatid aanad haysan maalintaas waxa weeye markaad gaboodid talo waad haysaa waayo-aragnimo waad haysaa balse ma haysid waqti aad wax ku qabsatid waqtiga waad lumiyay waqtiga dhalinyaranimada marka maanta waqtiga dhalinyaranimada ka faa'iideyso dhalinyaranimada ay ka faa'iideyso qodobkaasina waa qodobkeena labaad wax akhriska waxyigii ugu horeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo degay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم كلا إن الإنسان ليرقى الراه يسقنا marka aayadanu kaliya nabiga sallallahu alayhi wasallam kuma ay koomneen oo qof walba muslina way la gudboon tahay wayna ku socotaa marka qofka dhalinyarada intuu yar yahay inuu isku tarbiyadeeyo weeye wax akhriska caado wax akhris uu sameeyo wax akhriyo intuu yar yahay maama carbina waa tii ahayd man shabba ala shayin shaaba alayhi qofku wuxuu dhalinyaranimadiisa uu sameeyo oo ku cireysta haddaan maanta dhalinyaranimadaada aad samaysid inaad balwado kala duwan aad cuntid sida maadooriyaha sigaarka qaadka iyo wixii la midka haddaad cuntido aad samaysid haddaad caadada jari weydid oo ku gabowaysa ileen dhalinyaranimadaadii baad ku bilowday qaad iyo sigaar inaad qaadkana cuntid sigaarkana cabtide sidaas kuga jirta way adagta haddaanad go'aan gaarin sidoo kale haddaad inan tahay oo dhalinyaranimadaadii ku barbaartay heestii cusubba sidii laiskugu soo dulqaban lahaa iyona suuqyada iska wareegtid ninkii doontidna aad la kulantid sharaftaada iyo aayahaaga dambe ayay waxyeeleynaysaa iyo mustaqbalkaaga dambe marka wax akhrisku wuxuu ka dhigayaa qof jira daadiisa dhabta mid ka weyn markaad wax akhridid marka horta waxa lagu sheegayo aan hore u qaban jirin waxay kula noqonayaan wax weyn aan la qaban karin marka bal sidaan wada fahanno wax akhriskana aan leeyahay akhriya bal aan tusaalahan waliga adoona buul kala furin baan ku yiri wax akhri hebelo wax akhris waxaad ka faa'iideysaa waxyaalo badan adna wada ila yaabtiba maxaan akhriyaa marka wixii aadan hore u qaban jirin oo dibadda aad ka taagan tahay iyo marka gudaha ku jirtay waa kala mid anu iminka gudaha ku jiraa buugaag badan baan akhriyay waxyaalo badan baan aan ka fahmaya wax akhris qiimihiisa aan garanaya laakiin adigoo aadan weliyaaba buul kala furin markaan ku dhawo wax akhri wixii wax weyn kula noqonaya marka mar walba wax isleedahay bilow wixii caqabadaha ka hor imanaya marka inaad isku dhiibtin maaha sidoo kale waxaa laga mid ah qaarkiin inaad isweydiinaysaanba maxaan akhrinaa wadiyana le wax akhriya maxaan akhrinaa ugu horreyn markaad wax akhriska aad doonaysid inaad bilowdid waxaad ku bilowdaa buug fudud oo mawduuca jeceshahay ka hadlaya sida inaad buug nolosha ka hadlaya ama guusha ka hadlaya way jiraan buugaag badan oo la qoray sida buugga 10 furo guusha tirtoon Ibrahim Alfiqi uu qoray afkeena hooyana ku turjuman buugaagtaasaad ku bilaabi kartaaba hadda laakiin ku bilowdid
buug taariikhiya juqraafiya dee weyn buug weyn dee labada cisho ugu horey markaad bilowdid ayaad ka caajisaysaa laakiin buug yar oo mowduuc aad jeceshahay ka hadlaya ku bilow sidoo akhrisku dhadhan kugu yeesho maalmaha hore aad ku cusubtay wixii dambana adaa la qabsanayaba marka maanta bilow wax akhriska haddaad isleedahay English iyo Carabi baa wax lagu akhriyana maaha luqadeen hooyaba wax lagu akhriyaa waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo buugaagta Englishta iyo Carabiga lagu qoray ku soo turjuma luqadeen hooyo waxaana buugaagta ka helaysaa Iqra Books oo geeya Soomaalida oo dhan buugaagta dhalinyarada gaadhsiisa wax akhrida Iqra Books committee ugu horeeyaan ee dhigaya lambarada aad kaga xiriiri lahaydeen WhatsApp-kooda qodobkaasna waa qodobkaas waan isla fahanay rajaynaya qodobkeena saddexaad mas'uuliyad is saara dhalinyaray dalkiina mas'uuliyad inay iska saartaan waa muhiim haddaan maanta ku qanacdaan anigu Soomaali baan ahay waxba dunida ku soo kordhin kari maayo caynkan baan ahay Afrikaan baan ahay waxaas waliidnimo adoo isliidaya weeye marka qof walba dalkaaga mas'uuliyad iska saar inaad wax dhisto oo aanad waxba dumin maanta waxaan ugu bataatay Soomaalinahay dad wax duminaya oo dalkeenii baabiinaya balse aan waxba soo kordhinay marka aad mas'uuliyad iska saar inaad wax soo kordhisid oo aan waxba dumin markaan ku leeyahay wax soo kordhi wadila yaabasa waxa leedahay anu madaxweynaana maxaan qaban karaa waxaad qaban kartaan ku sheegaya tusaale ahaanba madaxweynuhu loogama fadhiyo inuu wax qabto wasiirka loogama fadhiyo adiga waxna lagaga fadhiyo inaad qabatid wixii aanay dawladdu ogeyn oo dalka qorsooni ku soo galay sida khamri kontrabaan oo la soo galiyay dalka si qorsooniga loo soo galiyay iyo xashiishadiyo waxaas ee dawladda la dagaalamayso hadaad ogaatay qofkii soo galiyay dawladdu baad aayar uu sheegaysa iyaduna way xirayaan sidoo kale waxa sameyn kartaa laamiyada geeya Soomaalida adiga jara qashin baa yaala qashinkaas ka xaari kartaaba mas'uuliyad bay saartay dalkaaga mas'uuliyad ka saar laakiin hadda tiraadid dawlad baa shaqo ku leh dawladdu wax walba ka subtaan dawladdu wax walba dad ka subtaan waa mashaakil waxyaalana way qaban kartaa waxyaalana ma qaban kartaa marka waxyaalaha yare iska normalka ee shacabku ka adag yihiin kaadko adigu inaad qashin ka qaadid in quraarad laamiga loo jibiyay aad ka qaadid waxyaalaha caynkaasa ayaa dalkiina ka qaban kartaan marka aad ka fekerin maxay dawladdu wax ugu qaban weyday ee adigu isweydii mar walba adigu maxaa dalkaagu qabatay oo aad soo kordhisay wax faa'iido leh oo aanan qasaarayn maanta waxaan ugu batay dhalinyaradii wax khasaaroon ka sheekeynaya wax khasaaroon dalka ku soo kordhinaya oo dalkoodii yasaya والله Soomaalidu wali horumar gaari mayso waxaas dalkoodii bay yeesayaan isma aaminayaan awoodii lahaysi marka dal kasta dadkiisa dhisa dalkiina mas'uuliyad iska saara dhalinyaray ininka u soo kacay dalkiina mas'uuliyad iska saara qodobkaasna oo qodobkaas qodobkeena afraad iska wareega suuqa habeen baad tijaabis habeen labaadii baad maalin labaadii baad bariga dambana routine buu ku noqonaya wax caado ku noqonaya waxaadna noqonaysaa qolada mar walba laamiya si hayso oo suuqa ku soo socda marka waxaad isweydiinaysaa dhalinyarada suuqa aad maxay qabtaan oo suuqa ka doonaan intay soo socdaan bay maqaaxi fadhiisanayaan kadibna laandhow ciyaarayaan kadibna markii qoraxdii dhacdo cadceedii dhacdo ayaa xaafadahooda ku soo noqonaya gurigooda ku soo noqonaya marka dhalinyaradii Soomaaliyeed caynkaas u bateen marka waxa muhiim ah inaad iska joojiso adigu inaad suuqa aadid marka suuqa aadaysid ha noqoto mar aad dan ka leedahay oo wax soo gadanaysid wax soo iibsanaysid ha noqoto laakiin haddaad suuqa iska aadid maalayacna u aadid oo caawo dhan suuqa soo dawaaftid adna wadaalaysa waqtiina wad luminaysa marka inta yarta dhalinyarada tahay ee dhalinyarada badankooda halkaas ku bixiyeen suuqay waqti ku qaata adoo suuqyadii waxaas ka fogow waxaad u dhaxaysaa waxbarashadaada iyo masaajidka markaad aadaysid cibaadada rabbiga soo gudanaysid iyo markaad wax akhrinaysid iyo markaad xaafadda joogtid intaasoo u dhaxay suuqa waxaad aadaa marka aad dan ka leedahay inta kale dee wixii ku anfacaya ku dadaal qodobkaasna oo qodobka qodobkeena shanaad ka faa'iideysta waqtigiina qofka bilaadanka raasamaalka ugu qaalisan ee uu haystaa oo waqtigiisa
cimrigan laguu sheegayana waa waqtiga aad nooshahay ka waran haddaad waxaan ku anfacan ku lumisid inaad mool iska isticmaashid inaad TikTok iska dhex fadhidid heesta cusub baad isku soo dulqabatid marka waxba qodobkan ku dheeraamaayo 2 muuqaal baan ka sameeyay thumbnailkiisa waa weyni kan arka ii muuqda mid waxa weeye nidaaminta waqtiga 19 qodob oo waqtiga ay ku nidaaminaysid oo soo daawan kartaa midna waxa weeye ahmiyadda waqtiga uu leeyahay taabiciintii asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiga waxay ka dhaxeen oo soo daawan doontaa mar rajaynaya labada muuqaal ee qodobkaasna waa qodobkaas qodobkeena 6 hantidaada qasaara ka ilaasho hantidaada ha ku bixinin waxaan faa'iido ku lahayn sida maanta ay sameeyeen dhalinyaradu sawir baa liska soo gelaya habeen iyo maalinba su'aal haddii aan ku weydiiyo 2021 iyo 2022 sawirkaad gashay labadaas sanad maxaa u dhaxeeya maxaa faqriga u dhaxeeya kaliya ta waxa isbedelay dharkii aad sidatay dharkii unba isbedelay adigu unba tahay marka ilaasho dakhliga yare ee ku soo gelaya kuna bixi wax faa'iido ku leh sidii inaad buug ku iibsatid oo akhridid ku darso buugaasna waxba ka faa'iideysan waxba kaga kordhay laakiin hadaad 24 saacadood marba sawiraad soo gashid sawir waa sawirun adigu baad waxa isbedelay dharkaasun iyo meeshaad ku soo gashay marka waxyaalaha caynkaas maanta dhalinyaro dakhliga yare hooyooyinkood iyo abayaashood siiyaan ayay ku bixiyaane marka inta dhalinyarada tahay ku fara adeeg dakhliga yare ku soo galaya wax keedso oo wax meel dhigo waxaad haysatid ba wax ku tahay bilaadanka markaan waxba haysan bilaadanku wax la'aantaas ku nacaya maama Soomaaliyeedna waa tiyahed baahi badan iyo bukaan badan baa isku naca marka waxaad haysatid wax meel ka dhigo wax ka keedso qodobkaasna waa qodobkaas qodobkeena 7 ka fogow haasawa waqti lumiska maanta dhalinyaradu jacayl bay ku hadaaqayaan rag iyo dumarba jacaylkaas mas'uuliyad uma haystaan waa yaaradnimo heer ama mas'uuliyadda ay ku qaadi karaan uma baxsana dhalinyaradii rag iyo dumarba waxbay iska jeclaanayaan inan heer u dhalay ayuu soo lugoonaya inantiina inan heer ay dhaleen ayuu soo lugoonaysa marka qof aad guursanaysid mas'uuliyad baa ku foolaysa qof dhan noloshiisii bad ka faala qaadaysa marka waxba jacaylka ku degdegina intaad yartiin mas'uuliyad darra dhalanaysa hadhow markiis guursatay ninkoo yar hadhow markuu qalad yar soo dhex maro waad kala yaacaysan buugba magaciisa ahaa garaadso intaan guursan marka intaad yartiin garaadsada oo aqoon barta oo isdhisa dhan walba iska dhisa dhan maadiyad dhan dhaqaalo dhan maskaxeed marka guursada marka ninkii awoodo guurso laakiin adigoona dhisneen dhan maskaxeed dhisneen dhan dhaqaalaana dhisneen inan Soomaaliyeed waxa ka soo lugoysaa wanaacasnimo marka 2 cishaad wada joogta ama 2 biloodna kala yaacsan oraabaheed jacaylkiinu si kastoo uu diiran yahay xabad kimisa dabka iga soo qaadimay si kastoo aad isku jeceshihiinba labiniinu is anfici meesan hadaynan dhan walba ka dhisneen marka dhalinyaro badankoodu maanta jacayl bay waqtigooda ku lumiyaan yahaasaawe ina Soomaaliyeed inaad 8 subaxnimo laga qaado 12 habeenimo laga kacayo sida loola hadlayo ama ina Soomaaliyeed inta 9 saac oo habeenimo laga qaado 12 saac oo habeenimo telefoonka laga dhigo marka sidaas dhacday imika dhalinyaradii waqtiga ku luminay haasawa marka intaad yartahay adigu ha u dhawaan jacayl iyo badiisana gelin ilaa aad isdhistid dhan walba dhan aqooneed dhan maadiyad dhan dhaqaalo dhan walba aad iska dhigtid inan toosan ama inan toosad aad u noqotid ku degdegin jacayl qodobkaasna waa qodobkaas qodobkeena 8 caafimaadkaaga ku dadaal caafimaadku waa nimcooyinka ugu qaalisan ee Ilaahay nagu manaystay caafimaadku waxa qiimihiisa garanaya qof xanuunsanaya oo dhakhtar jiifa ama guri jiifa caafimaadka qiimihiisa waxaad garanaysaa markaad xanuunsatid Ilaahay kuuma keenay markaad xanuunsatid garanaysaa shanta walaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ka faa'iideysta intayna ugu iman ayuu kamid yahay caafimaadka intaad caafimaadka qabtid ka faa'iideyso intaad xanuunsan waxaan ku iman ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta sidaan wala arkano geeyena Soomaaliyeed cuntooyinkii inoo dhaqanka ahaa Soomaali ahaan hadhowrkii ama garowii gidirtii
galleydii iyo wixii la midka ah ee cuni jirnay maanta ma cunno inta cuntana way iska yarta odayaasha cunaya islaamaha dhalinyaradu waxay cunaysaa baasto bariis bay cunayaan marka baastadaas oo bariiskaas oo caafimaadku ma wacna mar walba haddaad ka cuntid waa mashaakil haddaad cuni kartid cunooyinkaas cun jirkana way wacan yihiin hadhuurka iyo gidirta iyo geliya cun haddaad cuni kartid haddii kalaa timi haddaad baasto iyo bariiska cunaysid oo aad jeceshahay dhaqaaq oo soco fadhiga badan jooji fadhiga badan caafimaadku ma wacna soco dhaqaaq socodka badan ayuu wadawo laakiin haddaad fadhidid oo baasto iyo bariisun mar walba caloosha gelisid kiilo baasta aad cuntid kiilo bariisana aad cuntid oodan iska soo fadhido iska saaxatay iska soo toostid ana wax jimicsiga sameeyay caafimaadkaagu khatar buu ku jiraa cuntada badanna jirka uma wacna cuntada badan iska yareeya oo marmarka qaarkood maalmaha sunnada soomade ka sooma cuntada maalinta isniinta iyo khamiista nabiga sallallahu alayhi wasallam labada maalmood uu soomi jiray sunna ah marka iska sooma maalmaha ka sooma cuntada badan caafimaadku ma wacna marka ninkii awoodin inuu gym galo oo jirka ayaa dhis ninkii kalow ana awoodin inuu gym galo dhaqaaq oo socodka badan caafimaadka dawo yahay jimicsina waa ku weeye cuntadii faraabadneena jirka ay ku jirtay ayaa dabadda aadaysay marka caafimaadkiina ku dadaala oo nimco qaaliya ilaahay nagu munaystay qodobkaasna waa qodobka qodobkeena sagaalaad isku kalsoonow muuqaalkaaga guud ku kalsoonow ilaahay ayaa sidaa kuu doortay qofku inuu isku kalsoonaado weeye wuxuu ilaahay u doortay haddaad dheer tahay dhararkaaga ku qanacsanow haddaad gaawan tahay gamnidaada ku qanacsanow haddaad madowdahay madowaaga ku qanacsanow quruxda qofna muu samaysan qofna muu soo iibsan haddii la soo iibsanayo quruxda nin walba uu soo iibsan lahaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa bixiyay quruxda ayaa addoomihiisa ku manaystay odhaabaheed ma jirto cid qurux badan ama foolxum ee habfikirka aadamaha ayaa quruxda iyo foolxumada sawirta taas waa run dee habfikirka aadamaha sawirta quruxda iyo foolxumada ma jirto cid foolxum waayo dadkoo dhan ilaahay wuu sameeyey bila'aadan oo dhan ilaahay wuu sameeyey laakiin waxa laisku dhaafay waa alla kacabsiga ilaahay kuma eegayo maalinta qiyaame marka lasoo istaajiyo dee quruxdaada iyo wixii dadku kaa aaminsanayaani waxa la eegayaa wixii qalbigaaga ku jiray ilaahayna qalbigaaga u daalacanaya waxaa ku jira haddii xumaan ku jirto xumaantiibaa lagu qabanaya haddii wanaag ku jiro iyo bila'aadantinimo iyo waxqabad dee waxaas buu ilaahay ku qabanaya subxaana watacaala waxaa kaloo samaysaa bila'aadanka wixii wax ku dhaantid danyarta weliba alaga warahayo qofkii wax ku weydiista ada adduun ku dhaantid adduunkasi wixii aad awoodid dadka iska weynaysiinin aduu bila'aadan baad waxba is weynaysiinin ilaahay baa weyn subxaana watacaala dadka waxa ku dhaantid u qabo dadka wax tara intaad tiri kartid dadkaana waxba haysan ilaahay baa nugu itixaamaya qodobkaas intaas kaga baxaya sagaalaad qodobkeena ugu dambeeya ee tobnaad ilaahay ku xidhnaada ilaahay subxaana watacaala haddaad isku xidhid oo ilaahay wuxuu kaa xaaraantimeeyey iskaga fogaatid wuxuu kuu xalaaleeyeyna aad ka faa'iidaysatid ilaahay ajar baad ka helisa halkiisa ilaahayna uu kuu ilaalinaya haddaadna doonaysid inuu ilaahay dacooyinka kaa aqbalo ka fogow xaaraanta nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi jidhkii xaaraan ku soo kora naar baa iska leh marka xaaraantii iskaga fogow haddaad doonaysid inuu ilaahay subxaana watacaala wax walba aad weydiisatid uu kaa aqbalo xaaraantiis kaga fogow carabkaaga iyo dibnahaaga wanaagga ku sheeg haddaan wanaagna ku sheegin dadka ka hayso ha ku caayin intaa waxaan ku darayaa ilaahay barya ilaahay subxaana watacaala agtiisa wax ka raadiya bila'aadanka de 2 cisho markaad beredid buu ku nacayaa 2 cisho markaad beredid hebelo waxa ay qabo ayuu ku nacayaa de horaan u maahmaahno inuu Soomaali bay nahay runtii maahmaaha runtana ka maahmaaha waxa la yiraahdaa Soomaali runna way ku maahmaahdaa beenna way sheegtaa baahi badan iyo bukaan badan baa la isku naca markaad baahiyootid oo dadka u habar wacdid oo tiraadid wallahi waxaas ugu dhacay dadkii marka maalin wax ku qabtaan maalin labaadna aad soo caawitid way ku nacayaan marka intaad ka fogaan kartid baahida bila'aadanka ka fogow inaad bila'aadan wax weydiisatid rabbi samaawaati wal ardi wax weydiiso ilaahay subxaana watacaala samadan soke ayuu habeenkii u soo degaa 2 habeennimo ayuu soo degaa habeenka markuu soo dego ilaahay wuxuu yidhaa iyo waxay weydiisanayaan wax siiyaa iyo dembi dhaafay weydiisanayaan dembigiisa dhaafaa
dadkuna badankooda habeenadaas way hurdaan marka habeenkaa kac haddaad baahi weyn ku hayso ilaahay ayaa agtiisa wax walba yaalaan ilaahay ayaa agtiisana wax ka helaysaye bilaadan baryadiisa ka dheeraada inta dhalinyarada tihiin ee aad yartihiin aduu wax qabso wixii karaankaaga inta ilaahay tala saaratid baahi bilaadanana ka carar intaad ka carari karitid intaas waxaan ku daraya oo ugu dambeeya salaada ilaali jamaca ku ilaali haddii salaadaadu wanaagsanaato camalkaaga oo dhanna u wanaagsanaanaya ayuu yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam salaadaada ilaali waxaad ku jirtaaba oo 5 daqiiqe 5 daqiiqo ayaa rabbi samaawaati wal ardi ayaad la kulmaysaa ayaa hor istaagaysaa 5 daqiiqo ayaad dhibsanaysaa 5 daqiiqo ha dhibsanin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad hor istaagaysaa 5 daqiiqo ka adkow weliba salaadaha ay dadku dayacaan waxaa ka mid ah salaada subax salaada cishe ay dadku dayacaan markaa salaadaha ilaaliya inta dhalinyarada qodobkaasaa u dambeeyey muuqaalkeenna haddaad jeclaan lahayd in muuqaalada caynkana ay soo badino aad chalankana ka daawatid chalanka subscribe saaraysaa haddaad jecesha inuu walaalkaaga muslimka u gaadho soomaaliyeed leed ba saaraysa muuqaalka siduu gaadho walaalka inta muuqaalka xigaan isugu imanno dhammaantiinba dhalinyarada halkan ku xidhan waxaan igaga tegayaa amaano allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu